fidnada cali uu ka shaqeynay in aan ka fikirno cali wuxuu ka shaqeynay inuu yiraahdo degmana anay rabtaa degmana ima rabto waxay rabtaa wuxuu rabaa dhaqan aan jiri jirin oo shabeellada dhaxa ka jiri jirin inuu hiiraan u soo raro arinta ugu dambayseed gudbinayso adigoo fariintaada ay tahay mid xildhibaan oo heer federaal ah oo dadkaasi aad la wadaagayso waxa la rabaa cali juhdi hadduu bixinayo dagaalka ka socda calaag iyo dagaalka ka socda iyo dagaalka xuduudaha ka socda shabeellada dhaxa iyo hiiraan inuu waqti lacag iyo juhdi ku baxsheed hadduu dad iyo dareen iyo deegaan u ka naxayo walaalo horta waxaan rabaa dhaliisha inaan iyada nafteeda isla fahanno waxa la dhaliilaa wax aad rabtid inay ma aragtay ay toosaan waxa la dhaliilaa wax aad rajo aad ka leedahay inay toosaan laakiin waxaan kuu sheegayaa meeshaas waxa ka jiro ma ahan maamul runtii waa nasiib daro ummaddaas ku habsatay labada gobol waa meel mustaqbal leh Hirshabeelle waa meel laba gobol oo barwaaqo ah bad iyo webiba leh waa meel ilaahay siiyay beere iyo xoolo xoogan waa meel dadka ku nool taariikhda Soomaaliya ay ku leeyihiin macno weyn hase ahaatee masiibo ayaa ku habsatay masiibooyinka adduunyada ka dhaca midna waa rabbaani midna dadka ayaa sababa mid rabbaani ahna waa tan cirka ka timaada ama mataqaanaa biibaxa ama dab ama waxaas oo idil waa laakiin tan hadda ayay ku habsatay labadaas gobol waa masiibo gacantooda ay ku kasbadeen kadib markay iska celi waayeen waxa xun wax wanaagsan isku fari waayeen marka maamulkaas waxaan ku diidanahay in dadka aan matalna aysan ku qanacsanayn inaysan dadka aan matalno aysan raali ka ahayn tabashadooda mudday soo jirtay 10 iyo dhowr sano ay maraysaa maraaxil ay soo martay mar miiska wada hadalkay ahayd mar banaanbaxay ahayd mar diidmay ahayd hadda intaba way ka gudubtay waa hadda waxa waaye dadkuna way diidan yihiin siyaasiyiintu deegaankuna way diidan yihiin tiimka kalena inay wax xaliyaan daqiiqad kuma aysan fikirin bal waxay ku fikirayeen inay wax sii kala dheereeyaan dadkaas walaalaha ahayna ay isku sii daraan marka saasa sabab ah waayahay sidaad rabteen idinku in wax la yeelo oo maamulku uu noqdo oo loo maamulo labada gobol Hirshabeelle ay ka kooban tahay taladeena mar hore aan miiska wada hadalka aan geynay haduuba ay tala ay la qaadanayo waxaan rabnaa dadka aan matalna waxa ay leeyihiin aan rabnaa anaga dadka aan matalna meel marti ka yihiin ma rabno dadka aan matalna meel canshuur bixiyaal ay ka yihiin laakiin aysan xukunayaal ay ka ahayn ma rabno dadka aan matalna meel aysan maalkooda iyo naftooda uusan ku nabadgalayn ma rabno waxaan rabnaa meel naftooda iyo maalkooda uu ku nabadgalaan rabnaa dadka aan matalna deegaankooda wax horumarinayaan rabnaa wax dib u dhigaya ma rabno taasaan rabnaa marka maxay tahay waxa horumarka hortaagan idinku aad aragtaan madaxweynaha iyo maamulkiisa golihiisa wasiirada aysan arkin way arkaan oo cid caqabada ku haba iyaka ah taasan maanta cid walba wax garanayso Soomaaliyeed isteedkaas ka soo jeedo ama yuusan ka soo jeedin waa uu garanaya waana og yahay waana iska nasiib daro meesha ka jirto meesha wasiiro ma lahan wax ma lahan ninkaas iska wato way la safraan wali ma aragtay cali guudlaab oo joohar ka maqan golaha wasiirada shiray wali ma aragtay 4 sano hadda uu jooga hal mar ayaan ka xasuustaa madaxweyne ku-xigeenku hadda markuu joohar joogay oo shir iskugu wacay golihiisa wasiirada shirkaas oo golihiisa wasiirada iskugu wacay xaqiiqi leedahay muddo waxay ku qaadatay 2 isbuuc inuu madaxweyne ku-xigeenku uu yiraahdo golihiisa wasiiradan shir gudoominaha la yimaad muddo 2 isbuuc ay ku qaadatay inuu shirkaas uu qabto asaga oo jargaray fariimo diray shirka ka soo qayb gal uu yiri waxaas dhan ma isan dhicin meesha cali u xiran tahay hadduu safro waa la safraa hadduu yimaado waa la yimaada golo wasiiradu boorso yar oo asaga iska wato waa niman dhalinyaro mamnuuc oo haddii fursad la siin lahayd dalkan wax badan ka qaban lahayd way ku jiraan baarlamaan wili ma aragtay baarlamaanka Hirshabeelle oo inuu furmay kal fadhigiisa koowaad labaad saddexaad afraad dhahay ma aragtay asagoo miisaanid ansixina ma aragtay asagoo wax ansixina ma aragtay waa albaab iskaga xiran furuhina asagaas wato waxaasaan waa waxaan diidanahay dhibkanu reer Hiiraan kaliya ma qabaan reer Shabeellada dhaxna xaqiiqdii way qabaan dhibanayaalina ku yihiin waana ka xumahay labadaas gobol oo aad ku qiimaha badan in ay ku habsatay masiibadaas xildhibaane waxaad ka mid tahay xildhibaanada heer federaal ee maamulka dhan matala soo ma fiicnayn inaad dadka isku soo dhaweysaan oo la wada hadlo wixii la wada leeyahay laga heshiiyo labada gobol ee hadda Hirshabeelle ka kooban tahay aad isku keentaan oo maslaxad aad ka shaqeysaan intaad madaxweynaha iyo dad gaar ah dhaliil xooggan u jeedin lahaydeen adiga oo wariyaha ahaan ku direena cid horta xal ogol inay jirto cid ogol in la hadlo inay jirto cid ogol in dadka tabashada qaba inay hor fadhiisato ogol xali Twitter base wuxuu ku yiri cid qabasho qabta ma lahan marka nin aniga iska indha tirayo doonistiisa aniga wax macno iguma fadhiiso
nin anigu diidan jiritaankiisa sabab u diidi kara ma laha sabab u ogolaan kara ma laha marka idinku ma isku daydeen marka taas laga tago cid la isku dayi karay cid laga raadin karay cid loo dooni karaaba jirin meesha waa 00 waa eber waa ninkaas daacadda ka ah oo leeyahay wax cabashi wax tabasha ma laha ninkaas saas dhahayo waa haddii gogashii ina soo gelin oo meeshii wax la isku weydiin lahaa ina joogin soo qayladiin iyo markaas iyo mucaaradnimadiina banaanka ma aha khayladana iyo waxa horta wax qayl la yiraahdo ma jirto dadka aniga aan matalo in waxa iyaga rabaan ay ku xadaaqayaan ay ku fikirayaan inaan miiska siyaasadda aan ugu hadlo ana horta wakiil uga ah rabitaankooda iyo waxa ay rabaana cid bilaadan aan ugu heebaysanayo ma jirto dadkaas rabitaankooda aniga ku hadlaya rabitaankooduna waa waxa aniga aan sheegayo haddii waxa aan sheegay dadkaygu aysan rabin inay hadlaan media soo istaagaan odayaasha dhaqanka ah iyo ugaaska iyo dadkooda wax garadka waxay dhahayaan maxamed waa qaldantay naga fidhiso iyaka ay dhihi lahayn laakiin cali in meesha laga rabin asaguna uu ogina ilaahina uu ogyahay marka wax had waqti badan iskaga beel dareen meesha kama jirto way fariinta ugu dambayseed gudbinayso adigoo fariintaada ay tahay mid xildhibaan oo heer federaal ah oo dadkaasi aad la wadaagayso waxaan fariinteeda ugu dambaysay tahay dadka iyagu inay isku duubnaadaan fidnada cali uu ka shaqeynaya in aan ka fikirno cali wuxuu ka shaqeynaya inuu yiraahdo degmana anay i rabtaa degmana ima rabto waxay rabtaa wuxuu rabaa dhaqan aan jiri jirin oo shabeellada dhexe ka jiri jirin inuu hiiraan u soo raro oo awalna shabeellada dhexe isaga ugu shaqeyn jiray dadkaas walaalaha meesha jooga inuu madax isku guliyo rabaa dadka walaalaha meeshaas degan oo isku reerka isku daruufta isku xaaladda ah cadowga argixisada daafaha ka kala joogaana difaacida ugu jiraan ayuu mashquulinayaa waxa la rabaa cali juhdi hadduu bixinayo dagaalka ka socda calaak iyo dagaalka ka socda iji iyo dagaalka xuduudaha ka socda shabeellada dhexe iyo hiiraan inuu waqti lacag iyo juhdi ku baxsheed hadduu dad iyo dareen iyo deegaan uu ka naxayo laakiin nasiib daro inuu sii horiyo ma ahan ma aysan dhicin iyadoo xaaladaas ay taaganta ayuu hadda xaalad kale abuuraya waqtiga aan kula hadlay xaalad ayaa ka jirta tardo xaaladda waqtiga aan kula hadlay jalaqsi ay mid kale ay ka jirtaa in wiil uu dhinto inuu ka shaqeyna ma ahan xukunka haddii uu rabo awal buu haystay siduu ku haysan jiraa ku haysto oo hadduu sharaf inuu rabo inuu ku haysto dadkiisa iyo deegaankiisa ayuu sii lahay cali marka ka yeeli mayno shalin waa ka diidna maantana ka yeeli mayno inuu wax walbana uu qaato haddana uu naga sii been abuurto ka aqbali mayno kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet